Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran janalka FIFA Soomaaliya. Waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan dhammaantiinba. Ku soo dhawaada caawa sheeko ka duwan sheekooyinkii aad ugu barateen janalka FIFA Soomaaliya. Waxaan u maleynayaa inaad isweydiinaysaan sheekadu maxay tahay oo haya caawa. Sheekadan waa sheeko jacayl oo ka dhacday gobolka Banaadir, gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho. Ma aha caawa waxaan soo dhigayaa musalsal ajaanib iyo xayeysiintiisa, waa qiso jacayl oo dhab ah oo dhex martay lamaane Soomaaliyeed. Haddii aad ku cusub tahay janalka, inta aan guda gelin sheekada, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, lagna idhaahdo fikirkaadana aad igula wadaagto qaybta commentiga. Waan kaaga mahadcelinayaa asxaabtii hore iigu xireed ee saaxiibada ahaydna waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin daawashadiinii iyo ku xirnaanshihii saaxiibtinimo ee naga dhexeeyey. Sheekada magaceedu waxaa la yidhaahdaa axdigii aan lahayn ehelka maad ka jeclaatay. Axdigii aan lahayn ehelka maad ka jeclaatay ayaa loogu magac daray sheekadan. Waa axdigii aan lahayn ehelka maad ka jeclaatay. Waxay dhex martay wiil iyo gabar Soomaaliyeed. Waxay ku bilaabanaysaa sheekada sida tan. Wuxuu yiri, waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah 23 jira. Waxaan ka shaqaynayay dukaan aan leeyahay oo ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaan ahaa mid leh macaamiil fara badan, balse maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ay timid gabar. Inta aysan u soo gudbin dukaanka ayay bannaanka koray dukaanka waxay iga tiraahday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniguna waxaan uga jawaabay ayuu yiri wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Markii salaantii aan ka qaadayana waxaan gacanta ku hayay shaqo oo ma fiirin qof ay tahay. Qof waxaan mooday gudbay, balse wax yar kadib waxa ay timid qof kale oo doonanaysa adeeg. Waxaa ii yimaaday gabar doonanaysa adeeg. Waxaan soo xasuustay ayuu yiri wiilkii qofkii islaamayay. Waxaan fiiriyay bannaanka oo gabadhii ii timid dambe. Waxaan idhaahday isug. Haddii aan bannaanka fiiriyay, waxaa bannaanka taagan gabar xijaaban, aamusan oo hadal kale aan igu soo celin. Waxaan idhaahday walaal, qofkii islaamayay ma adiga ayuu ahaa? Haa ayay iigu jawaabtay ayuu yiri. Waxaan idhaahday soo gudub, maxaad u baahneed? Markaas ayay tiraahday adeeg ayaan u baahnaa. Soo gal ayaan iri walaal. Markii ay soo gashay, maba aha qof hadlaya. Waxaan iri abaayo maxaad u baahneed? Waxay tiri xaafadda ayaan deganahay. Waxaan rabaa dukaanka in aan macaamil la yeesho oo aan biilasha dhigano kana qaadano waxaan u baahanahay. Waxaan idhaahday waan ku soo dhaweynayaa ayuu yiri wiilkii. Waxay tiraahday ii qor buug ii qaas ah. Waxaan weydiiyay ayuu yiri magaceedii. Way ii sheegtay, waan qoray. Waxaan idhaahday walaal xaggee degan tahay? Hore xaafadda kugumaan arkine. Waxay tiri anigu in badan ayaan ku arkay, balse adiga ayaanay arkin. Xaafaddan 3 sano ayaan deganahay. Waayahay, meeshii ayaan ka bilaabay ayuu yiri isbarasho, ii soo dhaweyn. La soco qaybta xigta ee labaad. Aad ku mahadsantihiin daawashadiina asxaabay. Habeen wanaagsan.